wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay wehelinayaan agaasimaha guud ee wasaaraddaasi iyo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada hay'adda Save the Children ayaa gaaray deegaanka Qalax oo ku yaala xaafadda Masallaha ee koonfurta magaalada Hargeysa. deegaankan Qalax oo ay degan yihiin dadkii dhawaan dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ay ka soo rartay xerada ciidanka ee Burjeex ayaa ugu horey markii dadku ay halkaas degeen ayaa wasaaradda waxbarashadu uga dhagax dhigtay in halkaas ay ugu dhisi doonaan dugsi hoose dhexe kaasoo ay u dhiseen isla markaana hadda ay u tageen xaafadda Qalax in ay xariga ka jaraan dugsigaasi si ay ubadku wax ugu bartaan. munaasabadii xariga jarka dugsigaasi hoose dhexe laga hirgeliyay xaafadda Qalax ee duleedka magaalada Hargeysa ayaa waxa ka hadlay mas'uuliyiinta iyo maamulka dugsigaasi iyo sidoo kale dadka xaafadda uga mahad celiyay wasaaradda iyo cid walba oo ka shaqeysay hirgelinta dugsigaasi. saacadda wasiir dugsiga waa 4 fasal dhismaha dugsiga waxaa dhigtaa 1 ilaa fasalka 1 ilaa fasalka 7 tirada ardaydu guud ahaan waxa weeyaan 320 arday. tallaabooyinkii ugu horeeyay midhaheedina maanta waan aragnaa waana la joognaa hadaynu qalaxnahay. marka ugu horeysa wasiirka iyo hay'adda Save the Children way mahadsantahay. sidoo kale isaguna halkaas waxa ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada gobolka Maroodijeex iyo sidoo kale afhayeenka wasaaradda iyo agaasimaha waxbarashada tooska ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland. dad la soo raray oo magaalo weyn laga soo raray oo la keenay meel oo isla markiiba helay dugsi waa arin aad iyo aad loogu farxo taariikhdana u gali doonta wasiirka waxbarashada iyo agaasimaha guud. waxaan noo farxada in wasiirkii wasaaradda waxbarashada oo halkan dhagax dhigay maanta xarigii laga jarayo oo munaasabadii aynu joogno. waxa farxad noo ah haddaan nahay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska dugsigii Qalax in wasiirka wasaaradda waxbarashada xariga ka jarayo. dhan kale isaguna halkaas waxa ka hadlay madaxa hay'adda Save the Children ee Soomaaliland Mukhtaar. Save the Children runtii wasaaradda waxbarashada aan la shaqeynaa si dhow la shaqeynaa marka dhismayaasha la fulinayo baahiyaha jira ee xagga dhismaha waxaanu isla eegnaa wasaaradda. marka haddii la arko baahi waxbarasho oo caruurtii inaanu ku filayn iskuulkii wasaaraddan isla eegi doonaa dhismaha markaa waanu ku kordhin doonaa haddii la yidhaa iyadoo mar kasta la eegayo dhaqaalaha lahayana. ugu dambeyntiina halkaas waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Abakar iyo sidoo kale wasiirka wasaaraddaasi Axmed Toorno. iskuulkan la dhisay wuxuu qayb ka yahay markaa qorshaha xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya lagu talagashay waxbarashada lagu gaarsiiyo dhammaan meel kasta baahida ka jirto. marka xaq waa u leeyihiin iskuulka la dhiso in qaar kale la dhisana xaq waa u leeyihiin. maalintii halkaan isugu nimi watan meeshan meel bannaan bahayd cidna ma degnin waxaa laga warqabay markaa dadka see loo soo rari doonaa. maalintaa kelmad baan idinku waxaan meesha haddii iskuul laga dhiso dhammaan waxaa iman doona adeegga ay dawladdu bixiso dhan. maalin walba intaasoo iskuul baa Soomaaliland laga dhisaa laakiin de wasiirka iyo wasaaraddu ma awoodaan inay iskuul kasta furitaankiisa ka qayb galaan. laakiin meelaha qaarkood baa ugu qasabaho de muhiimadda la siinayo waxa ka mid ah kuwa miyiga ku yaala sida kan oo kale rural area waxa ka mid oo kale kuwa hablaha loo dhiso caruurta danyarta iyo orphanage kuwa loo dhiso ama agoonta barakacayaasha meelaha baahiyaha gaarka ah caruurta qabta inta waxa loo sameeyaa dhiirigelin loo sameeyo gaara. Save the Children iyo GB way noo qabteen iskuulka qurux badan bay noo dhiseen inta kale inaga dib isugu noqonayna. Abdulqaadir Cudi Hon Cable TV. magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waanu libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel. anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo. warmaahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. caadi ma aha maxaad mar hore igu sheegi weyday. fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya. Samtel shirkadda dadweynaha